بسم الله الرحمن الرحيم. maanta cashirkan waxaan ka hadlaynaa waxa la yidhaahdo topical drug administration. insha allahu tacaala si fiican aan u sharxi doonaa anagoo cashirku isku dayin inaan soo koobno wax badanna sheegno. ugu horeyn qeexid waa maxay horta topical drug administration maxaan ka wadnaa. waa nooc ka mid ah noocyada loo isticmaalo dawooyinka isha, waana nooca ugu badan dawooyinka isha loo isticmaalo. nooca ugu badan waaye topical drug administration. noocan topical waa marka dawada lagu dul shubo ama la dul saaro conjunctivaha ama corneada dushooda. waxaan ka wadaa conjunctiva waa kana iyo cornea, marka isha meeshaas lagu dul shubayo dawada ama la dul saarayo ayaa la yidhahdaa topical administration. waa wax lagu administrate gareynayo drugna waa iska dawadii, marka muhiimaddu waa topical. topical marka waxaa waaye dawooyinka lagu dul shubo ama la dul saaro corneada ama conjunctivaha isha. waxaa ka mid ah eye drops oo loo yaqaano goojooyin. waxaa ka mid ah ointment oo soomaalida ay dhahaan bomato. waxaa ka mid ah gels iyo wax la yidhaahdo soft contact lens. intaan shayba waxaa loo isticmaali karaa topical drug administration ahaan. aan u horeyno nooca ugu horeeya oo la yidhaahdo eye drops ama soomaalida u taqaano goojo. waa midda ugu fudud uguna badan ee la isticmaalo. waa most used, macnaa midda ugu badan ee la isticmaalo dawadooyinka isha noocooda ugu badan waaye eye dropka. badanaa waxaa la isticmaalaa maalintii halkii dhibic one drop oo goojo ah waxay ka koobantahay ilaa 50 microliter oo ilaa 50 ayay ka koobantahay halkii dhibicba. sida loo isticmaalo goojooyinka, waxaad hoos u soo jiidaysaa baarka hoose ee isha. waxaad hoos u soo jiidaysaa baarka hoose ee isha, baarkan hoose ayaad hoos soo jiidaysaa, kadibna ku dhibci hal dhibic. haddii aad isticmaalayso laba goojo u dhaxaysii 5 ilaa 10 daqiiqo, iskuna xir indhaha ilaa 5 daqiiqo. macnaheedu waxa waaye waxaad soo jiidaysaa baarka hoose ee isha, goojada meeshaana ku dhibcinay loo balbar conjunctivaha iyo meeshaana dhigaysaa. haddaad laba goojo isticmaalayso laba goojo lagu soo qoray ama aad qofka laba goojo u qortay, waxaad leedahay waxaad u dhaxaysaysaa 5 daqiiqo. marka midda koowaad markaad dhibic ku shubto 5 daqiiqo kadib midda labaad isticmaal, iskuna xir 5 daqiiqo indhaha isku xir. sababtu waxay tahay 50% dawadu waxa ay ku hartaa conjunctivaha dushiisa ilaa muddo 4 daqiiqo ah. sababta loo leeyahay 5 daqiiqo indhaha isku xir dawada kale 5 daqiiqo u dhaxaysii waxaa la ogaaday in 50% conjunctivaha dushiisa ay ku harto mataqaana dawada ilaa muddo 4 daqiiqo ah. second ku qabo fartaada lacrimal sac si ay u yaraato dawada gaaraysa jirka guud. macnaha waxaa laga wadaa fartaada lacrimal sac meeshaan ku qabo. qofkan aad u jeedaa sawirka meeshaas farta ku qabo lahaa qofka, sababtoo si ay dawada gaaraysa jirka systemka jirka guud gaarayso ay u yaraato. sababtoo xitaa ilintu waxa ay ka baxdaa labadaas dalool ee la yiraahdo punctum. dalooladaas mu jeedaa dhibicda yarista, kadib waxay meeshaan martaa lacrimal canal, kadib waxay gashaa meesha la yiraahdo lacrimal sac, kadib waxay u sii gudataan lacrimal duct. inferior fetus la yiraahdo godad jeexan ku dhex yaala sanka dhexdiisa gashaa, systemka jirka guud ee u gudubtaa. marka haddii dawada meesha inta aad ku shubto aadan farta meeshaas ku qaban ama uusan qofka 5 daqiiqo indhaha isku wada xirin, macnaha dawo badanna laga yaabaa inay ilinta meesha ka bixaysa gasho kadibna jirka guud gaarto. marka si ay u yaraato badanaa dadka patient xitaa waxaa loo sheegaa inay ku qabtaan mataqaanaa farta ku qabtaan meeshaas. midda labaad waa ointment bomato. bomatadu waxaa la mariyaa qaybta conjunctivaha ee baarka hoose ee isha. ayada midda eye drop ay ka tahay biyo ayada xogaa way ka semi solid way ka yara adag tahay. marka ayada waxaa la marinaa oo hoos dhigaa baarka hoose ee isha, lower eyelidka saas loo hoos dhigaa. waxa ay ka waxtar badan tahay goojada maadaama waqtiga ay dur saarnaanayso conjunctivaha uu ka badan yahay midda goojada. ayada waqti ka badan waqtiga goojada ay dur saarnaataa conjunctivaha. saas darteed marka
mataqaan waxtar badan tahay laakiin waxay aware ka dhigtaa aragga blurred vision sidaa darteed lama isticmaalo maalintii ee waxaa la marsanaa marka la seexana daas waa marka bishanada mostly inteeda badan waxaa loo sheegaa inay boomaatada isticmaalaan marka ay seexanayaan sababtoo waxay tahay maalintii waxay koos gareysaa blurred vision ama inuu aragga ka dhigto aware jeeliska ayaga waa sida boomaatada kale waxaa la mariyaa isha sida boomaatada oo kale aragga kama dhigto aware ayada blurred vision ma laha dhiga aware blurred vision ma laha sida boomaatada oo kale laakiin si mostly waa qaali waa expensive uu ka qaalisan yahay ointmentiga ama boomaatada uu ka qaalisan yahay wayna adag tahay in la diyaariyo difficult to prepare sababtoo tahay in la qaso oo mataqaana la isku daro u baahan yahay saas darteed badanaa boomaatada la isticmaalaa waxa ugu dambeeya waa soft contact lens oo iyadana topical drug administration ahaan loo isticmaalo contact lens waa baliil la dul saaro corneada dusheeda contact lens waa baliil corneada la dul saaraa hadda waa corneada waa qaybta madowga isha la dhahaa aa la dul saaraa waa transparent ma dareemaysa inay meesha wax dul saarayeen sida corneada oo kale ay u eg tahay hadda ishaan way dul saarantahay cornea dul saaran waxaa dul saaran mataqaanaa contact lens marka ayada waxa waaye waxaa jirta iyada oo loo isticmaalo daweyn ahaan marka ayada badanaa waxaa loo isticmaalaa contact lensiga qofka glasseska ama waxsaasa aanan rabin inuu isticmaalo ama diidayo inuu okiyaalo waxsaasa saarto contact lenska powerka okiyaalaha loogu dul suubiyaa marka badanaa ayada saasaa loo isticmaalaa laakiin tookadan waa iyadoo loo isticmaalayo daweyn ahaan waxaa la ogaaday marka in 100% pilocarpine oo soft contact lens loo isticmaalay ay ka waxtar badan tahay 4% pilocarpine oo gooje drop ah mar loo isticmaalo dad qaba acute ankylosing glaucoma macnaha waxaa laga wadaa dawadii soft contact lens marka waxa la suubinaa waa la qabanaa dawadii la dhex dhigaa dawadii xoogaa dhuuqee contact lenska galay kadib waxaa la dul saaraa isha dusheeda marka 4% ay ka waxtar badan tahay ayadoo 1% oo ayada loo isticmaalo wax ka waxtar badan 4% oo drop ahaan loo isticmaalaa laga wadaa marka way ka waxtar badan tahay soft contact lensiga bahasha dawada isha la dul saaraa ayada abaara mataqaana dawada la dhex gelinaa kadibna waa la dul saaraa waxaa kaloo sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daweeyo dadka qaba cudurrada corneal ulcerka iyadoo antibiotic iyo antiviral ahaanba loogu isticmaali karo marka waxaasoo dhan waa topical drug waa administration qayba ka mid ah sidee marka lagu yareeyaa marka inay dawadu gaarto jirka guud systemic circulation inay dawadu gaarto sidee lagu number 2 in la isticmaalo boomaato instead of goojo marka goojana inaad isticmaasho laakiin mostly inaad bukaanada u raacayso inay habeenkiina isticmaalaan boomaato ay ku seexdaan sababtoo xitaa way ka yara adag tahay ayada oo ma geliso systemiga intiisa badan jirka guud ma geliso number 2 in farta lagu xiro lacrimal sac qofka markuu dawada ku shubtaba inuu lacrimal sac oo ay meeshii ay ka bixisay ilinta iyo hadaa idin sharxay meeshan inuu farta ku qabto qofka number 3 in indhaha la isku xiro muddo 5 daqiiqo oo qofka 5 daqiiqo markuu goojada ku shubto isha uu 5 daqiiqo isku xiro isha si aysan mataqaana dawada u gaarin jirka guud haddii laba goojo la isticmaalayaan in muddo 5 daqiiqo loo dhaxaysiiyo labada goojo isticmaalkooda marka waa jidadka mataqaana loo ilaalin karo ahaa in mataqaana dawada ay jirka guud gaarto cashirkan dhan wuxuu ku saabsanaa topical drug administration I hope in fahanteen ama santeen